بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadiini lix iyo labaatanaad maanta waxaan rabnaa inaan ku soo qaadano inaan fasaxa idiin siiyo horta marka ugu horeyso oo kelimaadkii ramadaan iyo qofka waxaa weeyaan waa duruus joogta ah nafta bani aadamkana waa daaleysaa marka inaan idinkaga sheekay bal islaamka dumarka makaanada ay ku leeyihiin oo mujarad baxthi cilmi ma aha laakiin bal wixii khawaatir ah inaan wax idinkaga sheega waxaanay ugu soo dhaca waxaan saas u leeyahay waxaa weeyaan caalamul islaami markii uu gaalada ayna qabsatay dhulka islaamka badigeed gacanta lagu dhigay waxay dooneen dadkaas inay islaamka ay daciifiyaan oo sumcadiisa ay baabi'iyaan oo kalsoonidii ay dadkaas islaamka ku lahayn zaczac la geliyo waa fiiriyeen abwaabta ay ka soo gelayaan oo ay u arkeen inay munaasabo tahay in xagga dumarka ay tahay marka waxaa la bilaabay qaacida la yiraahdo dumarka islaamka waa ku dulansan yihiin waxaa u daliila kayta wa kayta wa kayta waxaan sheegi doono dhan markaasaa waxay weeyaan jaraa-idoodii idaacadoodii qoraalkoodii kulli meeshiibaa ileen dadkii wadanka ayaga haysa waxoo dhan ayagaa gacanta ku hay say u celcelinayeen yaa dadkii muslimiinta badigood iska rumeeyeenba oo inay dumarka islaamka ku dulman yihiin haddii tabar loo haayana ma jirto dee diintina ugama tegi karno bal sideeda aan ku qaadana wax kasta ceebay leeyihiin sidaasay ay dan dhaafi weyse marka kelimadaas yaraan rabaa maanta inaan tacliiqiyo wax isxasuusin u baahan ma aha dumarka iyo ragga waajibaadka iyo xuquuqda boqolkiiba 90 waa u siman yihiin shareecada islaamka maalan aan ka soo qaadano arkaanul islaam oo shahaadateynka iyo salaadii zakadii soonkii xajkii yani sidii ragga looga rabaya dumarkana looga rabaa marka fiiriya waxaa weeyaan maqaamkaas waa ku siman yihiin haddiiba ay arkaanul islaam ku sinaadeen wixii ka dambeeyay min baabi awlaa lianna wixii ugu sarreeya bayba ku midisan yihiin wixii kaloo takaaliiftii hooso waaba ka sii daran tahayba haddii la yidhahdo cuquubaadkii maalan haddii labadooda mid kamida uu zino gala waa isku cuquuba hadduu midkooda wax hado waa isku cuquubo haddii midkooda midka kale u qadfo waa isku cuquubo xuduudi waa ka samayn qowlan waaxidan bal waxaad ogtihiin alrajulu yuqtalu bilmara walmar'atu tuqtalu birajul nin hadduu naag dilo waa la dilaa ayada hadday dishna waa loo dilaa labadoodii meesha ugu sarreysa waa markii la yidhaahdo waa qisaastii labadooda waa ku siman yihiin ayib markii ay timaado xuquuqdii lilmar'ati min alxuquuqi ma lirajuli maalan dumarkii wax waa gada karaan wax waa milki karaan wax waa hibeyn karaan wax waa xuray karaan sidii ka rijaal oo kale waay khulaasat lamri waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu watacaala min asmaa'ihi waxaa ka mid caliimun xakiim alla cilmi badan shay kastana meesha ku habboon dejinayo xakiim saas waay wadcu shayi fii maxalihi xakiim waay ashyaabaa jirta boqolkiiba 5 haddayba dhan tahay yaa loo qeybiyey dumarkana intaana lagu gaaryeela lagu fadilay raggana inbaa lagu fadilay dadkii wadamankeena qabsaday waxay ku guuleysteen intii dumarka gooni loosi intay ka aamusteen yaa ragga intii la siiyey cala nisaa looga fadilay yaa la boobooniyey dumarkii haddayna cilmi lahayn dadka caadifadooda aada u adag tahay waay markaa ayaga dhan way wada kacayaan markay maqlaan walidaalika maanta dhan waxaad arkaysaa raggii dumarka waa siman yihiin ragga xuquuqa waa u siman yihin dowlad kastooo timaado ciddii kastooo timaado waa u siman yihin yaa ka murmay middan qayb baa la siiyey ninkaana qayb baa la siiyey naagtana qayb baa la siiyey oo meelo qaarkooda lagu kala fadilay marka laakiin annaga dadkii maba yaqaaniinbo dumarkii oo dhan waxaa laga buuxiyey
in la xaqiray makaano aysan ku lahayn, laakiin si ay yeesho ay lahayn in sidaas iska qaadata ay tahay, lacala wa casaa jannada inay hesho ay kaga badbaada dulliga adduunyada ku haystay. saasaa loo suuray. waxaan xasuustaa nin aan saaxib ahayn yaa wuxuu iga warramay nin zamiilkiisa baxrayni ah ingiriisku waxbarasho u aaday. marka fasalkii buu galay, wuxuu iri naag waxaa ka mid a macalimiinta naagi asalkeeda yahuudi ah, waa ingiriis waa iyada, laakiin asalkeeda yahuudi ay kasoo jeeda. markay ogaatay ninkan islaam inuu yahay oo una carab yahay, subax kasta waxay caado ka dhigatay 10 daqiiqo hore in islaamkii iyo ceybihiisa ay ka sheekayso, waxyaalo run iyo waxbeen wixii dhamma isku daraysa. ninkan wuxuu iri aniga weligay siduu saaxiibkiisa ka sheegay diin maba soo arkin oo si guriga leegu dhal islaam baan magaca ka ahay, iskuulkaas cilmiga aan ka soo baxay, maba yaqaan islaam oo dhan. markaasaan waa islaamka saan waasan dadkii ardada aan la fadhiyay buu yiri yaa igu soo wada jeesanay, waryaa waxaanad aaminsan tahay waxaan ma caqiidadiina ah iyo ilaahay buu yiri. ninkii wuxuu noqday gudda oo cambaar leh buu noqday meeshii markuu joogay, say ugu waday arrintii oo dhan. maalinkii dambe wuxuu iri waan ishay waay, gacantaan u taagay buu iri i dhegeysa. waan ku iri macalimad yahay, waxa aad sheegayso dhan hadday islaamka ku jiraan xataa sidaas aniga aan ku aaminsanahay, mana ka tanaasulaani ee wax kale ma noo sheegtaa. naagtii horta meeshaasay kaga burto, ninkaa ilaahay baa iska xifdiy diin ma laha, laakiin wuxuu iri hadduu ceebtaas leeyahay xataa waaba rumaysanayo, saasaan bu ku rumaysanaya, wax kale maad haysaa buuri. anigaa xuri waa caqiidadayda waxaan rabaan aaminay. maalinkaas ay dhaaftay inay ka hadasho. yani taa waxaan uga gol jeedaa ilmaheenna maanta aan leenahay islaam waaye, waxay islaamka ka yaqaaniin haba yaraatay axkaamtiisa iyo caqaa'idiisa iyo furuucdiisa usuustiisa ma jira, magacoon bay islaamka yihiin. walidaalika absad tuhma shubha haddii lagu soo tuuro waxa weeyaan way ku ta'athurayaan. marka mushkilo aad iyo aad u weyn waay. aan u nimaado maalan waxaan aan shaki ka lahayn ragga ilaahay inuu fadilay, dumarka uu ka fadilay maalan dhaxalka. dumarkii ninka intuu qaatay niskiis ay leedahay, diyadii sidaas oo kale, shahaadadii markii markhaati la kacay 2 naag iyo 1 nina isku daraja. waxaa la siiyey ninka talaaqi asaa gacanta ku haya, asaa wax furi kara laakiin iyada ma furi karto. waxaa la siiyey qawaama inuu macnaha guriga asiga oday ka yahay, ay macnaha dumarkiina zawjadina ku ateecdo. waxyaala aan laga gabanaynin waa islaamka ayaa ragga si gooni u sii intaas. laakiin waxaa isweydiin wax ma jiraan dumarka laga fadilay ragga lagaga fadilay ma jiraan. dad badan haddaad weydiisay walaa kelima waaxida kama yaqaanin. ayib waxaa ka mid mithaalkii aan hadda wax baan kuu tirinaa dhegeyso. waxa weeyaan hooyada waxaa aabbihii lagaga hormari albir, hala samafala haddii la yidhaahdo daacada ha loo sameeyo. hooyadii aabbihii waxay ka horeysaa 3 joor buu nebiga ka hormari. man abaru markii la weydiiyey ummuka man ummuka man ummuka, markaasaa abbaaka la keenay. horta hooyadii iyo daacadii wiilka aabbihii, daacadii caruurta ay adeecaan hooyadoodii aabood samafalkooda hooyadaa ku horeyso. kow anoo fasal maalin darsi ka bixinay oy dumar iyo ragba isla joogaan yaan weydiiye, waxaan ku yiri intiina meesha joogo nin kasta hooyo aabbuu leeyahay, yaad jeceshiin hooyadiina iyo aabbihiin? qof baan u weydiiyey. kulligood waxay isku waafaqeen inaan hooyada, qof kasta wuxuu hooyada aan aabbaha ka jeclahay. hal qof oo ka taraduda xataa kuma jira, laa binta walaa walad. marka waxaan ku yiri haddee waxaad leedihiin gaaladii waxay idin leedahay dumarkiina islaamku waa ku dulunsan yahay, adinkan hadda waxaad ka markhaatintihiin intiina meesha fadhiso inay dadka waxa adduunyada jooga hooyadiin inay ugu qaalisan tahay. haddiiba hooyadiin ugu qaalisan tahay goormay ay madluumo noqotay? inteesa ka keentay baan ku yiri in hooyada laga hormariyo aabbaha? diinteenna ka keensana bay yidhaahdeen. hooyai aabba isku mid ma ah. marka diinta hooyadii ka fadishay aabbihii samafalkoo akhlaa shay ah oo ay noqotay acazi insaan calaa wajhi اlardi binisbati lilabnaa, goormay noqotay maxquura oo mid la xaqira goormay noqotay baan ku weydiy. walaashii baan u nimiday,
intooda u badan walaashi bay fadileen markii walaalka loo fiiriya walaasha oo duruufaysan iyo walaalka oo duruufaysan aad horumarinaysaa walaashay ninkoo dadkii ugu dhow iyo arayna waxay yidhahdeen waa usima waxaan hela waa u qaybinaya marka dumarka adduunyada jooga imaa inay ukhtu tahay walaal iyo imaa inay hooyo tahay labadiiba iyadaa ragga ka sarrayso marka yacni taas lama soo hadal qaadayo laakiin kuwaa kale unbaa la fiirina ka soo tag waxaad u timaadaa ilaahay subxaanah wa tacaala markuu ka hadlaya wuxuu uri wasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu 30 shahran ilaahay wuxuu iri waxaan u dadaaranay dadkii inay labadii waalid u dhimriyaan markii saas la yiri hooyadii unbaa laga hadlay xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan yaa la yiri macnaha ishaara ayd waxay tusinaysaa labada waalid ha loo dhimriyo oo ha loo baari noqdo laakiin hooyada kumaba sii jirtoba liannahu intaanay dheer tahay aabbihii saasay ka dhigan tahay aayaddii soo tag ilaahay jihaad buu nagu waajibiyey liiclaa'i kalimati illaahi jihaad yaa lagu waajibiyey dumarka mase raggaa waajib uu ku yahay dumarka inay isdifaacaan haddii gaalku soo weerara mooye gurigooda iska joogaan wa akhtar shay wa ashaq cibaada cala nafsi waa jihaadkii waay maadaama naftiba ay baxayso haddee dumarkii ixsaan ma loo sameyn mase looma samaynin cibaadadii ugu adkeed oo nafta ay ku baxaysay baa layidhi adinka ladinkama rabo hada tafdiil lilnisaa cala rijaal dhibkii waa laga daaya waxaa layidhi gurigiina jooga imaw dumarkii markii la isguursanayo ilaahay wuxuu u waajibiyey mahar in la siiyo maharka ninkiyaa laga rabaa naagtaa la siinaa labadan waa laba jinsi oo isu baahan naagtani shahwaay leedahay ninkana shahwow le isu baahan yihiin inay iska gutaan midkood midka kale ma dheero maca daalika alayiri ninkii waa inaad mahar bixisaa oo waajiba laa yasixu nikaaxu duunahu yaa layidhi hada min tafdiili الnisaa cala الrijaal waa mantiq waay ka soo tag masruufka u imaw waxaa li labadeeda isguursataan ninkii waxaa laga rabaa masruuf joogta a leyla nahaar wixii la cuni lahay wixii la maro lahay wixii la isku daawey lahay kulli korkiisaa la saaray dumarkii wax lagama rabo qad yaquulu qaa'il dumarka shaqa maba haayaanbo gurigayba iska joogaan marka waa ku qasban yihin ninkan inuu soo shaqeeyo taas iska badayn naagtii oo shaqaysaaba la helayba laba isqabto kulligood waa isla shaqeeyaan ninkiina lacaguu qaataa falnaqul $1 u qaata ayadana $2,000 ay qaadataa gurigaa laysugu yimiday masruufkii ma isbedelay oo labadooda mooda qaybsanayaan mase ninkii unbaa laga rabaa ninkiiba unbaa laga rabaa hada min tafdiili النساء على الرجال لأنه wixii la cunay waa laysla cunaa shaqadii waa laysla aaday waa laysla yimid lacagtii waa la qaaday mantiqa wuxuu ahay guriga in la yidhaahdo aan qaybsanno aan wada bixinno ayada hadday wax ku darta cidi u diidaysa ma leh laakiin sharciga maye xadaana haddii labadii ay kala tagaan caruurtii yarayd yaa gacanta ku hayna ilaa caqli uu ka yeeshto hooyadaas kale aabbihii inuu ku masruufay waajib ku tahay hadhow canugu markuu caqli yeeshto waa loo khiyaargelinaa hooyada iyo aabbaha ayaad raacaysa midka u raaca ayaa la raacsiinaya ayib kasoo tag waxaasoo dhan aljannatu gaayat linsaani fi hadihi dunya inuu janno galo ilaahay ridiliisa ou helo ilaahayna qiyaamo uu ku arko jannadii weeyaan u fiirsa nebiga nin baa u yimid wuxuu iri ilaahay rasuulkiisa u jihaad aan u socdaa jihaad aan u socdee inaan idinkaa weydiistaan doonaya markaasaa layidhi hooyadaa ma nooshahay aabbahii lama soo hadal qaadin xadiidkaanaan ka hadlaa riwaayadan riwaayo kale xadiid kalaa jira xayun waalidaaka qaala nacam qaala fafiihma fajaahi taas waa u siman yihiin laakiin riwaayadan maxay leedahay nebigu wuxuu iri falzamhaa fa ina aljannata taxta rijlayha dadaa waxay leedahay aljannatu taxta aqdaami lummahaati lafdigaas lafdi ahaan waa u daciif laakiin macnihiisa xadiidkaanay ku sugantay xadiidkan saxiix waay falzamha fa ina aljannata taxta rijlayha baa layidhi jannada waxaa weeyaan lugaha hoosteeda hooyada lugaheeda hoostooday ku jirtaa bimacnaa ayada inaad raalli garaysid oo aad ka dambaysid iyo aad ku heli kartaa baa layidhi
marka fiiri intaasoo dhan markaan isku soo aruurino khulaasadii waxay imaanaysaa waxna dumarkaa la sii waxna raggaa la sii inna waa loo simay waa inta badan marka maxaa keeni karo inan maantanan aan maskaxdeenna ayna ka bixin dumarka waxa weeyaan raggaa laga fadilay intaas baa yaa la sii waa la yaqaan miiraadka diyadii ayadoo la ogyahay haddii aan miithaal ahaan ku keeno miiraadkii kale ka soo qaado culammadii yaa ka jawaabtay haddii aabbo uu dhinto wiil iyo gabar uu ka tago oo 300 oo shilin ama 300 oo diinaar uu ka tago sax waa wiilkii 200 uu qaadana gabadhiina hal bay qaadanaysaa labadoodii hadday guur isla doonaan wiilkiina gabar buu doontay gabadhiina waa la soo doontay wiilkii 200 uu qaatay waxaa laga rabaa mahar waxaa laga rabaa maxaan ku idhaha ta'hiith ilbeyt waxaa laga rabaa masaariif waxaa laga rabaa guri ijaar labadiisii 100 kuma filnaanaysa waa inuu dayn soo galaa gabadhii 100keeda intay meel dhigato yaa ninkii soo doontay dahab bay ka qaadanay mahar bay ku darsatay maxaan ku idhaahdaa isticdaad waxay ilahayd ay ka qaadatay lacagteeda waa kordhaysaa waxa looga badi wiilka markaan oo dhaxalka looga badiyay labadooda waxa sugaaya baa ilaahay uu fiiri soo kuma dhihin ilaahay caliimun xakiim waay marka anaga haddaan ka qaadna 200 oo qaatay idina 100 ay qaadatay sharciga 100ka siiyo 200na wiilka sii markay guur isla dooneen tanna lacaguu sii kana lacaguu ka qaaday marka maxaa uga fiirinay meesha hore kali ah oo meesha kale aad ugu aamusaysa wax la wada ogyahay waay laakiin waxa weeyaan aljahlu shareecadeenii maba naqaanbo qofkii waxaa dhici karto waxaan shareecada lug aan ku lahayn shareecadiina saan qabta haddii la yidhaahda mayana ma dhihi kara haana ma dhihi kara maba dirsininba shareecada ma yaqaanba waxay ka mid tahay waxyaalaha isticmaarka la yimid aan dhaha gumaysiga isticmaar waaba kelima fiican be isticmaar haddii luqa ahaan loo qaato dhulkoo la camiraa la yidhaahda laakiin waa gumaysi marka gumaysiga waxyaalaha uu noo keenay baan anaga ku celcelinaynaa sida ibnu khulduun uu yiri waxaa lagu yaqaanaa ibnu khulduun wuxuu yiri waxaa lagu yaqaanaa ninka maqluubka oo laga awood badan yahay daa'iman wuxuu wax ku arkaa indhaha ninka oo ka adag oo ka qaalibka indhihiisu wax ku arka caqligiisu wax ku fikira afkiisu ku hadla waxay ayaga sheegayeen un baan maanta dhan sheegayn hadda alxuriya hadday rabta xuriyada hadday rabta ha gaarto ninkii in la guursado asiga naaga laga dhigto waxaa lagu leeyahay xuriyada la doonayo oo la rabo in lagu yeero maxay tahay marka waxaan u baahannaha annaga cilmiga laa yacdiluhu shay qofka hadduu cilmi barto iyuu garan karaa marka maa lahu wamaa calayh mushkiladana haysata waxa weeyaan annaga yaa diinteenni ka marti ah markaasaa dad kale oo gaalo ohba diinta rumaysanin aan rumaysneen yay noo akhrinayaan diintiina sidaan ah annagay ahayd in annaga diinta u akhrinoon gaarsiino aladiina yubaliguuna risaalaati illaahi dadkii la yiri baan nahay annagaa dadka inaan diinta ugu yeerno oon maxaasinta diinta u sheegna annagay ahayd annaga inta noola yimida wadankeena nagula qabsaday aalayidhi diintiinaan idinkaga warramaynaa kaalay muxaadara idinkaga dhigaynaa taa waxaa weeyaan cadowgeena inaan u gacagalnay haddiiba khasul khusuus wixii gaarka ku ahay lagugu fasiray wax laga xumaado soo ma ah waxaa jiri jirtay qabla 30 sana 40 sana masaadirta islaamka oo makhtuutaadka ahaan jirtay dad mustashriqiin yaa soo xaqiiji jiray ilaahay markii jaamacaadkan la furay oo rag dhallinyar ay soo baxeen ee buxuuthi la bartay yaa waxay nimankaas samayn jireen oo sunta ay noogu dari jireen kutubtii ay taxqiijinayaan soo baxday kadib waa iskaga wada carareen meeshii oo dhan marka cilmiga waa silaaxa keli ah ay ummadii ku hormari karto annagana naxnu qowmun aczana allahu bilislaam famahma btagayna alcizata fi gayri alislaam adalana allah yani sidii cumar ibn khataab uu yiri annaga qoom ilaahay diinta ku sharfaanahay haddaan sharaftaas aan ka tagnana waa duloobayna haddaan qaadana waa kor noqonayna ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica wassalaamu calaykum waraxmat ullah